الله dhibaatooyinka maanta jira ee caalamku aad uga qayliyay waxyaabaha aynu kaga hortagayno fi manduurin diiniy wa islaamiy inagoo ka eegayna dhinaca diinta iyo waxayna fartay wax kastoo dhacaba islaamku waxba ku xaliyay waana waxa u wanaagsan waxaynu kaga hortagaynaa ugu horeeya adducaa toddobadan qodob baynu tirin doonaa waxa ugu horeeya adducaa inaynu ilaahay barino subxaanahu wa tacaala قالوا أودهم بيسبدان لكن إلهي ما بريان بريا قال لما أقبله رسولك صلى الله عليه وسلم استقى دعاء ينقوها أننا يمرك وحدعان وحولي حديثك أحمد ورني حسن كاها لا يرد القدر إلا الدعاء أو لا يرد القدر إلا بالدعاء قدر كالدعاء بلغوها رجوك سلاه أنا الدعاء نوى قدران تهي وحي سور دعينا وقدران هي لبدا سؤال هاي سكور هذيا وحقدر كإلهي كبحا مجرو حديث كرا حاكم موريني من حديث عائشة حسنة رسولك وحول صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل دعاء بلايا صوت دكتين وحبي كترتا بلايا صوص عطنا وحبي كترتا وإن الدعاء لا ينزل وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة بلا إذا صوص عطا أي الدعاء إيا ربي بارك وكهرتقاه إلى قيامة انت لقى قاريانا وإسلال لبن لك ديستا كهدي الدعاء حوق بدنته ويكحوق بدنته انت بلا يده وحينو كهرتقاه ناس دعوين كاس ونبي نوتشي دي صلى الله عليه وسلم دعوين كنبي نبري بأغفض بدن taasoo ilaahay uu baryayo wixii khayraha adoomuha ay haystaan inuu ilaahay u daayo wixii balaayana ka duwo Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik ducooyinkii nabiga calayhi salaatu wassalaam ilaahay waxaanu ka magan galaynaa inaad nicmada naga qaado caafimaadkana aad naga qaado balaayadana aad nagu rido intaaba waa ka magan galaynaa min zawali ni'matika wa tahawuli aafiyatika wa fujaati niqmatik إلهو نعمة النودة وعافماتك النودة وبلايا كريس كان نقد القاد وحكود عيساني رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام والذا إيا برص إيا عذرك الجذام كالله إيا عذر هذا حنحنبا إلهو كان مقنقلينا لكن دعوين كوارد يا رسولك كسوء ريبا سرت حنبارس وحلا بعض إنك كهرتقينا الصدقة inaynu deeqda bixino dadkana waqtiyadan la kala xidhay busaarada ku badan iyo baahide qof waliba wixii uu dhiibi karo uu bixiyo sidaas uu ina baray nabigu calayhi salaatu wassalaam xadiis Bukhari iyo Muslim ku sugan ayaa wuxuu nabigu ku cadeeyay maalintii qorraxdu ay madoobaatay oo dee waa musiibooyinkii dhacay caalamka ku soo kordhay waxa uu yiri fa idha ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu marka arrimahan oo kala aragtaan waaweyn caalamka ku soo biiray balaayooyinka ah ilaahay bariya Allahu akbar tabadiya salaada tukada sadaqadana bixiya Anas ibn Malik oo xokayntii nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulku gacantiisa ku tababaray waxa uu baakiru bi sadaqati fa inna al-balaa la yatakhatta sadaqa bayhaqi baa warinaya waa athar sugan weey لك الله صدقة ولا دقدقة بلايد وكما صوت الله بسطه صدقة وكما سود البودة ونجح إلى هاي وكتشوتشيو ولماذا وحي لين حتى قفك قال كألف تيس دينو إلى هاي كقد دفاعي ولا قفهمي كراع حديثك وحنبي حسي عليه الصلاة والسلام لما لقينا مالين والبس سود دقيانو بدواد عيال دعوا لتاغين اللهم أعطي اللهم أعطي منفقا خلفا إلهك وحبحية بدل سيب الله ككلنا هبار بولا تاغين وحلا اللهم أعطي ممسكا تلف إله وقفك وحي سيسكها يستا تلف سي تلف كوار لما شعون حولها كردمان كرا نفتي سار لمن كرتا إهلكا كردمان أي وهبار شن بقلناها هاد كلها هذا كوب شاهنها هذا هبار كمالا قينين وحونك غفك نافعا waxa uu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam cudurka laftiisu markuu yimaado waxyaabo ilaahay ku qaaday inay kamid tahay sadaqadu daawu mardaakum bisadaqa atharka
xasanka ah ama xadiidka xasanka ah saasuu nebigu ku yihi sala allahu calayhi wasalam dadkiina buka ku daweeya sadaqada marka ka hortag iyo ka dabatag labadaba inay sadaqadii noqon kartuu ku caddeeyay axaadiida rasuulku waxyaaba aynu kaga hortegayna waxaa ka mid a shukru nicma wasabru cala albalaa qofku ama uu dhiban yahay ama dheef buu haystaa markuu barwaaqo iyo khayr haysto inuu ilaahay u mahadnaqo subxaana wa tacaala madarkii baa ilaahay noo shubay abaartii waa inaga ilaaliyey markaa waa inaynu ilaahay ugu mahadnaqnaa in badan rabbi subxaanahu wa tacaala lain shakartum laaziidanakum buu ilaahay ballan qaaday waid taadana rabbukum lain shakartum laaziidanakum ilaahay wuxuu ballan qaado ogeysiiyey haddii ay mahadnaqdaan waan kordhinaya caafimaadkaan kordhinaya xoolahaan kordhinaya roobkaan kordhinaya walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddii nicmadaa ka gaalowdaan oo ku mahadnaqi weydaan cadaabkaygu wuu daran cadaabka cudurrada adaga caamkaaba ka mid a waxaa aynu kaga hortegaynaa ama ku waajahaynaa inaynu ka faa'iidaysanno wakhtiga faraha badana aynu haysanno alfaraaq dadkii waa la wada xareeyey soo maa maxay dadku yeelayaan miyay iska ciyaarayaan miyay majaajilaynayaan dad badan baa waxay ka dhigteenba cudurkan iyo waxaan dhacay waxay ka xaraabaadsadaan ama ka riwaadsadaan qaar sida digaagadda u ciyayaad arkaysa qaar guryaha dhexdooda ku maadaynayaad arkaysa markaad eegta barahan bulshada iyo meelahan wax laga eego wakhti aada u fara badan buu qofkii helay oo laga yaabo inaanay isu helin isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisu wakhtigaa waa in looga faa'iideeyaa maxaa adduun iyo aakhiraba dani noo ah sida loo cibaadaysanayo sida cilmiga loo kororsanayo sida aqoonta kor loogu qaadayo sida ubadka loo rabaynayo wakhtigaa dadku shaqooyinkii laga fasaxay waxbarashadii laga fasaxay waa nicmo qaali ah oo laga yaabo markaad mashquulsanayd inaanad haysanin talooyinku nebiguna siinayna wuxuu ahaa wa faraaqaka qabla shuqlik wa sixataka qabla saqami intaan cudur kugu dhicin caafimaadka ka faa'iidayso intaanad mashquulin faraaqa iyo jaaniska ka faa'iidayso marka taasina nicmooyinkay ka mid tahay wakhtiga in lagu buuxiyo wax qiimo badan oo ciyaarta laga daayo iyo riwaayadda iyo bilaa macnaha iyo haasaawaha iyo dembiga waxaynu kaga faa'iidaysanaynaa inaynu soonno bishan shacbaan oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu soomi jiray soonkeeduna waxa uu ka mid yahay soomamka ugu fadli badan sunnayaasha axaadiidta saxiixaynka waxay tilmaamayaan oo caaisha leedahay kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan in yar mooyaane bisha shacbaan nebi moxamed u wada soomi jiray wamaa ra'aytu akara siyaaman minhu fii shacbaan bishuu ugu soom badnaa nebi moxamed bilaha sanadka o dhan marka la ysku daro shacbaan bay ahayd ramadaan marka laga reebo usaamatu bnu zayd asxaabigii la odhanayay baa weydiiyey nebigoo wuxuu ihi bishan soomka aad baad u badisaa shacbaane maxaa ku soo kordhay wuxuu nebigu ku sababeeyey sala allahu calayhi wasalam bishani waa bil ay dadku qaflad kaga sugan yihiin ama aanay aada u dareensanayn soomkeedu fadligu leeyahy waa bil u dhaxaysa bilihii xurmada lahaa mid ka mida oo rajaba iyo ramadaan marka rajabna waa loo dadaalaa ramadaanna waa loo dadaalaa bishan bay dadku markaa qaflad ka galaanoo markaasaan doonayaa qafladdaa inaan dadka ka baraarujiyo marka aad buu u badin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam bishan soomkeeda waxaa kaluu tilmaamay camalka addoommahana in ilaahay la gaadhsiiyo loo kor qaado waxaa ku jirta bay culimmadu leeyihin xikmado dhowra oo uu nebigu u soomeeyey sala allahu calayhi wasalam bishan shacbaan si aynu uga faa'iidaysanno xikmadaha waxaa ka mid ahaa xaasaska nebiga calayhi salaatu wasalaam intii soomku uu ka tegay soomku uu ka dib dhacay qallihii bishan shacbaan bay soo qallayn jireen sida xadiidka saxiixaaba caaisha ku tilmaantay soomka wixii iga tegey ramadaan horey dhaafay wakhtigaanay daahirka ahayn iyo waxaan soo qallayn jiray shacbaan marka si uu nebigu ula dadaalo xaasaskiisa isaguna sunnuu soomaya iyaguna qallihii bay soomayaan soomkaasi xikmadaha ku jira waxaa ka mid ahaa sidaa xadiidka hore usaamaba uu soo sheegay si uu qafladda uga baraarujiyo nebigu iyo cibaadada ay warla-aanta kaga sugnaanayaan xikmadaha waxaa ka mid a sida xadiidkaasi uu caddaynayo waa wakhti camalka iyo warbixinta malaa'igtu ilaahay ay gaadhsiiyaan oo camalkii addoomaha la rafciyo marka waxaan jecelahay buu nebigu
camalkayga in ilaahay loo gudbiyo anigoo sooman xigmadaha waxa kamida waa ka tamriini calaa siyaami ramadaan waxaa loo sii tababaranayaa bishii ramadaan ee soo socotay oo qofku had iyo jeer hadduu hawl adag qabanayo loo tababaro ama dagaal uu galayo oo carbis fiican la siiyo hawshaas si fiican buu u qabtaa uu ku xaragoodaa markaa qofkii shacbaan la soo qabsaday soomka ramadaanna way u sahlanaanaysa xigmadaha waxaa ka mida waa ixyaau sunnatin mahjuura sunno dadku ay ka tegeen oo lasoo noolaynayo nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam waxa uu xusay xadiidkii saxiixaa sunno dadku ay ka tegeen qofka soo nooleeya waxa uu leeyahay ciddii kaga dayatay ajrigooda intay heleen in la-eg waxaynu dhibaatooyinkan ku waajahaynaa biliimaani bilqadari waatawakuli cala allahi tacaala waxaynu rumaysannahay wixii dhacaaba inaanu iska dhicin laakiin qadar ilaahay uu ku yimi marka waa ku qanacsannahay qadarkaa ilaahay u qaadan waa inagu dhici maayo waxaad arkaysaa gaaladiioo fooqyada iska daadinaya qaarkoodoo isdilaya qaarkoodoo isgubaya qadarkaanay rumaysnayn ilaahayna waynu tala saaranaynaa subxaana wa tacaala labada arrimoodba ilaahay aayaddan buu ku wada tilmaamay xayثu qaal qul lan yusiibanaa ila maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun waxaana soo gaari kara uun wuxuu ilaahay noo qadaray dadka alla yaqaankiina ee ilaahay rumaysanna allaha tala saartaan oo arrimahooda ilaahay u dhiibtaan waxaynu kaga hortegaynaa arujuucu waatadarucu ila allahi tacaala wax kasta oo dhaca ilaahay wuxuu inaga doonayaa inaynu soo noqono aynu baraarugno dadku xumaantiibay kullibdheenay ku fogaadeen marka waxaa loo baraarujinayaa inay dib u soo laabtaan ay baraarugaan ka gaalkii toobadkeenu islaamo ka caasigii ilaahay caabuda subxaanahu wa tacaala kii xumaanta ku jira ee uu ka baxo ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بدي يبر ببلايا يصبح ليلة إلى هول دنبي جيدتكو قالين أيا وحا كيمي عذر رضا يا عبسدا يا عريري بدن دتك هايست يا بسارد وحا الله وحا هايستورنا من بلايا دا أي دتكو سميين يا معصية كل شيء إلى هول marka ilaahayna dhibka wuxuu ugu ridayaa lacallahum yarjicuun si ay u soo noqdaan oo ay u toobad keenaan waxa aynu arrimahan kaga hortegaynaa akhdu lasbaabi lilwiqaaya ilaahay waynu qadarkiisa rumaynay waynu tala saarannay laakiin laa natawaakal isdhigan mayno oo odhan mayna ilaahay baynu tala saarannay wax walba aan samayno ma yeelayne wixii sharcigu ina farayna waa yeelaynaa ay ka mid tahay sababaha ka hortagana inaynu samayno horena waynu soo sharaxnay oo khudbadihii horena waynu kaga soo hadalnay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha noocana kaga hortegi jiray iyo dhibaatooyinka wax alla wixii caafimaad ahaan xal u noqonaya dadka ka hortagga iyo daaweynta intaba in iyadana aynu ku dadaalo marar badan a idaacadaha ka dhagaysataana la idiin sharxayo waxaa ugu dambayntii nataa'ij waxaa natiij ahaan arrimahan uga soo baxay aynu arkayno ee caalamka ka muuqanaya ana alumuura biyadi illaahi tacaala arrimahoo dhami dhib iyo dheef bayna ilaahay gacantiisa ku jiraan oo dadkii odhan jiray awood baanu leenahay iyo dowladihii faani jiray ummaduhu xaggooda ay eegi jireen itaaldarradoodiibaa inoo muuqatay wa khuliqa alinsaanu daciifa waxaynu maqlayna madaxweynaha talyaaniga gacmuhu kor u taago waxa uu leeyahay arrinku dhulkii wuu ka dhammaaday xagga saraa laga war sugayaa dadkii muslimka ee masaajidada inay ku tukadaan loo diiday baa lay shaariciyada ku tukada bannaanada oo bal in wuxuun laydinka aqbalo ilaahay noo baryaday leeyihin annaga dawadayadii iyo ogsajiintayadii iyo waxaga iyagu u dhammaaday cirkaynu jawaab ka sugaynaa buu ku leeyahay dee waxay ahayd inuu ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala markuu dacfigiisa qirtay waxay noo arrintaniina xusuusinaysaa nataa'ijka ka mid ah aakhiro iyo qiyaamaha